قصر بينا فورا القيحان قيلا قرناي فورانا في لقى قفلي قبرنه سيالو تقوم بهالكي لقو قتلي قورت صودقان ما نيان بدي الله يقرشا الله يبقى لي madaxweynaha Soomaaliland oo maanta khudbadda rasmiga ah ee sanadlaha u jeediyay labada gole ee baarlamaanka Soomaaliland ayaa waxa uu beeniyay hadal haynta tirada badan ee ku saabsan madaxweynaha Soomaaliya inuu imanayo magaalada Hargeysa arintaasi oo uu ku tilmaamay mid aan dhici karin hadal haynta madaxweynaha Soomaaliya imanaya Soomaaliland Hargeysa imanaya horta waa hadal hayn laakiin hadal haynta waa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi talaabo wanaagsan uu qaaday markuu yiri halgelin baan laakiin wuxuu ku dayay markuu yiri waan imanaya Hargeysa oo sideebuu ku imanaya la isku diinay sideebuu ku imanaya xeerarka caalamiga ah curfiga dawliga ah aqliga saliimka ah midna ma qaadan karo ninka dawladdiisii iyo dalkiisa oo ka madaxda yahay waxa soo dambiya gareen ayaa dadku waxa u geystay waliba oranaya anigoo madaxweynaha gobolladii soo siyaarinaya soo ma hawaan imanaya macnu soo wada soo inta maaha oo taameen aqbalayna maya dhanka kale madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu sheegay inuu furi doono tartanka ururada iyo sidoo kale axsaabta maadaama xisbiyada Soomaaliland ay ku fashilmeen in markaasi ay xal ka gaaraan arrimaha siyaasiga ah ee ku gadaamin doorashooyinka taasi awgeedna uu go'aansaday inuu wada ka qaado oo uu furo ururada tartanka ururada Soomaaliland laba sano waxa naga dhabaadeen muran madaleysa oo hal la bedelo hal la kala diro commissionka iyo sharci loo kala diro lama hayo waa commissionkii hore waqtigooda dhamaaday kuwa cusub ay magacawnay kuwa cusub waxay soo mareen jaranjaradii sharci cidii uu xeer ku siinayso xulaan baa soo xushay madaxweynaha la soo marinayay isna uu iskriin busaaro uu sii daayay baarlamaanka sii daayay maxkamadii baa dhaarisay haddana muranka lagu soo noqday kuwan hala kala diro yaa sharci loo kala diro lama hayo meel hala kala diro sharci lama waa murankii waa kii labadii sano hore ayaa inagu bilowday mar haddii ay xisbiyadii qaranku ku fashilmeen inay ka heshiiyaan arrinta commissionka oo war doorashaha inoo qabteen waxa quraya inoo furan doorasho gaari karnaa oo doorashadu waajib inagu tahay waa inaan xisbiyadii furaa يا horta mid baa yaab leh dadku waxay lahaayeen oo dadku rumaysan yihiin nimanka golayaasha labada gole ma doonayaan in doorasho dhacdo ee kursiga waxa tiraya shacabka inta leeyahay xisbiga la furo waa u furteen taasi waxay bulshada inay diyaar u yihiin doorashooyinka madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa sidoo kale waxa uu tafaasiil ka bixiyay kulankii uu kala qaatay magaalada Addis Ababa madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya iyo qaabkii kulankaasi uu ku dhashay iyo waxyaabaha ay ka wada hadleen in salaasada 12 oo Prime Ministerka Itoobiya marti qaaday xafiiskiisa saacada aanimood aad baan uga raayaan farxay markuu uu wacay inuu chance ay siiyo hal baan ku tagay aad u orday ee xafiiskiisa ku tagay 12 salaam iyo ka bacdi labeeroosku salaana wuxuu sheegay in madaxweynihii Soomaaliya farmaajana uu soo galayo oo dhaxal soo jiro hadda soo galay halka markiiba isna waa yimid saddexdii halka waxaan ku galay shir aanan kulle anigu warshihiisa hore u sii ogeyn kana diyaar garoobin ana maan kana ku hayn inuu soo fudushkaas u dhacayo halka laba waxaan muddo yar baan joognay wixii lagu hadlay wuxuu ahaa Prime Minister Abiy wuxuu yiri waxaan doonayaa oo diyaar u ahaan soo diyaar garoon soo xarkaxday inaan dhex galo dhibaatada dhex taala Soomaaliya iyo Soomaaliland way raagtay waa arrin Afrika u taala waa arrin geeska Afrika u taala marka arrinta waa galaya Soomaaliland diyaar nahay waan aqbalay inuu arrinteena soo dhex galo ra'iisul wasaaraha dowladda Itoobiya halka wax ka badan
maxamed cabdillahina waa aqbalay intaa wax ka badan oo barnaamij iyo ajande iyo faahfaahin midna lama gelin waqtigeeda lama hayn madaxweynayaal baa meesha istaba socday intaa iyo salaan iyo waayahay aanu diyaar garoonayo waanu diyaar garoonaynaa ayaan ku kala nimid cabdishakuur dayib maxamed honkable t v hargeysa adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo idahab haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga amase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida